waxaa jira dad ducadooda la aqbalo uu nabiguna inagu baraarujiyay calayhi salaatu wasalaam ama habaarkooda hadday ku habaarana horay baa laga aqbalaya hadday ku duceeyaana biidni illaahi horaa loo aqbalaya alxamdu lilah xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والله ليال سيدا درامي سيدا خطبة وحي كهد ليس موضوع على حديدة دعاء وحي نكدرنا واختيادا أي ظروفي سنهي baahi weyn baynu u qabnaa mar walba iyo waqtigaynu sii baahanay labadaba abaaraa jira biyo la'aan iyo madar la'aan baa dadka cabanaya cudurraa jira dadka qaarkood baa laga yaabaa inaanay aada ugu baraarugsanayn ducada iyo rabbi bariga marka xoogaa la joogaba mawaadiicda raqaa'iqa ah ee qalbiga dabcinaysa addoonka ilaahay u soo jeedinaysa iyo daliilku wuxuu ka yidhi waa muhiim waxay qaybtaa hore kaga soo hadalnay ducadu miisaanka ay ku leedahay diinteenna iyo fadliga ay ku leedahay ilaahay agtiisa iyo siduu nebigu u dhiiriyay calayhi salaatu wasalaam dadkeennu way jecel yihiin ducada waa laga yaabaa cid kale iska daayo qof xanuunsanaya inuu kudhaa ii ducee way ku wanaagsan yihiintaa laakiin ducada si loo aqbalo aqbalkeeda iyo ijaabadeedu u dhowaado aadaab bay leedahay marka mowduuca aynu ku soo dhowaanaynaa waa aadaabta ducada iyo wakhtiyada la aqbalo iyo erayada la odhanayo sirta xambaarsan iyo dadka laga ducaysanayo aadaabta ducada qaarkeed waa waajib qaarna waa sunni kuwa waajibkaa waxaa ka mid ah alikhlaasu lilaahi subxaanahu fi ducaa in ilaahay keligii la baryo nebi lama raacinayo welina lama raacinayo addoon kalena laguma lifaaqayo jin iyo insi midnaba ilaahay wuu inagu filan yahay haddaad ilaahay cid ku lamaanaysa macnaheedu waxa weeye adigoo ilaahay saloogay oo yidhi ilaahay iguma filla waa in kala lagu si lifaaqaa ilaahay iyo hebelow ma taallo ummadaha shisheeya qur-aan ku yeeday waana cibaadana ilaahay keligii unbaa la caabudaa sida salaada aan cid kale loogu tukan karin ilaahay mooyaane ducaduna waa saas oo kale nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa adducaau huwa alcibaada ducadu iyada laftigeedaaba cibaado ah cibaadana alluunbaa iska leh wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlishiina lahu ddiin addoommaha waxaa la faray inay ilaahay keligii daacad saafi uga dhigaan cibaadada wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada waa daliilada tilmaamaya rabbi keligii in la baryo aan cid la raacinin qofkaad maqasho isagoo sidaas samaynayna kala tali oo uga naseexeen aadaabta waxaa ka mid ah laa yastacjil alcabdu fi istijaabati ducaa inaanu qofku degdegsanin ducada aqbalkeeda nabiguna calayhi salaatu wasalaam taa wuu ka digo wuxuu yihi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjil yaquulu dacawtu falam yustajab lii mid idinka mida ducadiisa waa la aqbalaya haddaanu degdegin oo aanu odhan ilaahay baanu barino waxba waa naga aqbali laaya adiga edab darro samaynaya dib isugu noqo ilaahay ballankiisii kama bixina aadaabta waxaa ka mid a wax dembiya inaanid ilaahay baryin haddaad dulmi ku socoto dadka dulmi ku abaarayso ama qaraabo goysnimo ay noqoto aqbal male ducadaas laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biithmin aw qadiicati raxim qofka ducada waa laga aqbalayaa buu lehy rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddaanu dembi ilaahay baryin oo aanu qaraabo goysnimona ku darin macnaheedu waxa weeyaan dad xaq ku lahaa buu gardarro ku habaaraya aadaabta waxaa ka mid ah an yakuuna xaadira alqalbi xaala adducaa'i muqbilan calaa rabbi cinda munaajaatihi fii khushuucin wa sakiina wa muuqinan alijaaba waa inuu ilaahay u soo jeedaayo qofku isagoo xawilan carabkiisun waa inaanu ducada ka wadin laakiin waa inuu ilaahay u soo jeedaa maxaad umalaysaa bani aadam markaad codsi u qadimayso adoo soo wada jeedo indhahaagu eegayaan baad qofkaa wax weydiisataa laakiin adigoo telefoon ku hadlaya ama meel u jeeda dee wax ma weydiisat
إلهي وينام محض مليس سبحانه وتعالى. نبي وحول عليه الصلاة والسلام حديث حسنة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إلهي بريا إذن كوكو كالصوانين وإذن أقبلي. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وقال إنان إلهي كأقبلين دعاء قف إلهي كسيجيله. آدابت الدعاء لو أقبله وحكم إذا تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. قفكم مركز تو إلهي وعابده مركز تو حارانت إسكدا الدعاء يسأقبل كيد ودوية. قفكم كالضاع بدين أو كعبادة بدين هيبو كالدعاء بدنية أيو كأقبل وقلوانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مركز اسبدل سميسيدا وححون اسكدا يسائل هينا كادو القاضي يا ربك. marka wadadii ducada loo maray hadaa dhagaxaan dhigayso ilaahay wuxuu ku yiri aqbal anna waan ku aqbaliya falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun an aqbala ducada waan u dhawahay horta iyagu hay aqbaleen oo hay rumeeyeen laakiin ka ilaahay ku gacan sayda maxoog buu wax kaga qaadaya. aadaabta waxa kamid ah qofku inuu xalaal cun yahay casrigan iyo baabkaana waad garanaysa wuu ka sii digay nabigu waanu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam xaaraanta in la macaansan doono aakhiru zamaanka qalbigu markuu qombabu qallalo aakhiru zamaanka waxa ku dhacaya dadka xaaraantii iyo xalaashu inay isugu mid noqdaan. xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam layaatiyanna cala annaasi zamaanu laa yubaali almaru bima akhada almaal am min alxalaali am min xaraam. waxaa dadka iman doona waqti oo qofku aan u aaba yeelayn xooluhu cunayo xalaal bay ka yimaadeen mise xaaraan. waxaynu ku kala duwannahay qofka aan diinta lahayn aan ilaahay rumaysnayn dariiqadu xoolaha u soo saaray iyayna waynu kala duwannahay. innagu waxaynu eegnaa baabkaa la yidhaha ma xalaal baa mise waa xaraam. weliba waxaa waajiba qofku intaanu tallaabada qaadin markuu intaaj samaynayo wax soo saarayo inuu ta'siil raadiyo oo culimada wax weydiiyo. maruu xoolihii ururiyay oo bartanka ugu jiraabay su'aala ku weydiinayaan maba ka fuqayaba wuu macaasanayaa shaydaanka u qurxinaya. waajibku waxa weeye intaana tallaabo qaadin inaad istishaara samayso ama istiftaad masalada u raadiso sharcigu waxa uu ka yiri. marka cudurkaas iman doona buu nabigu yiri aakhiru zamaanka. xadiidkii saxiixa ah dheeraa wuxuu nabigu ku dhiirigeliyay ummadda inay ku daydaan rususha ilaahay amarka ilaahayna qaataan wuxuu rasuulada farun buu idinkana idin faray camal wanaagsan iyo cunno wanaagsan kuluu min at-tayyibaati wa'maluu saalih. ilaahay camal wanaagsan ugu cibaadaysta oo isaga u gaara cunno wanaagsan oo xalaalana cuna. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa dheer waxa uu ka warramay saxiixu muslim ku sugan qoftee waqtigii ducada la aqbalayaba marayo baahan safar ku jira basaasay ilaahay keligii baryayo yaa allah laho waabu ku celcelinayaa ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. لكن وحي لغو سو كوريا بي ku soo koriyay dharkiisa iyo doonigiisa iyo wax oo dhamay waa wada xaraam buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka arintaasina waxay ka mid tahay aadaabta ducada faralka ah. musiibadayna haystay ka mid tahay dadku ilaahay bay baryayaan way ku celcelinayaan waxba lagama aqbalayaba. waa qodaxdana ku taagan qofka ilaa uu iska fujiyana waxba laga aqbalay maayo. haddii waxba laga aqbali waayana waa musiibo weyn. nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurkaas qofku hadduu xaaraan shaqeeyo carruurtiisiina balaadi gaadhay oo carruurtii baa wax laga aqbali laaya marka wuu soo ururiyey laaluush buu ka soo ururiyey xoolihii ummaddu u boobay dadkiibuu khiyaamay iyo xeelad waxoodii kaga qaadaya waa riba cune. ilaahayna yaa allah buu leeyahay wuu baryayaa. nabigu wuxuu leeyahay iska joog hortaysa soo safee laabudda min altakhallusi min almaali alxaraam. si wax lagaaga aqbalo horta xoolaha xaaraanta ka soo takhallus. sida looga takhallusaana waxa weeye ummadaad ka qaadato iyagii un ku celi xataa hadday ribo tahay ummadun bay ka timid ood ka qaaday iyagii ku celiyo danaha guud ku bixi ama dadka baktiyaya si kadibna adigoo saafiya wax amaaho ilaahayna bari arsaaqal xalaala markaas uu ku bilaabay. waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. ballankaas aanu ilaahay qaaday meelaanad filaynin inuu ka arsaaqi doono. aadaabta ducada sunnaha waxa ka mid ah mahadda ilaahay inaad ku bilowdo
يسلق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إن أدقى سواء نظرا إلهي وهداد دون السيقى أقبل ونصوصها إنتا صورنا ينكسوا ورورينينا وهذا كم إذا إنه قعمها قفك كرو قاوة سيدو رسولك بها صلى الله عليه وسلم رك قار كود بالأرك يكلين كل ديس في حال الابتهال وقت هذه يشاري لها آذو بريئيو مركا دقالك بلاب مركا أباروه جراني آدابته وحا كم إذا أذيقوا ظاهرة وإلهي يسوتش ذا سبحانه وتعالى أذيقوا أقل نعمدوا إلهي كسية يقف كذا ذو قليس تانا كقرابية باهي وين أدموشساد إلهي وباهنتي دعاء وين أنا كحد كدبين ودعاء كوبانا كد داش واختيار فضل قبضنا وإنين كد دالو واختيار فضل قبضن النصوص دام الدليل ذو يكسر وراه وحكم إذا مركن سجود سنة ووقت وأدونك إلهي أردقي هل كي حبنيس أو شرف بضيد لا درادي أذان كي أقيمت ده حدوده هبينك قيبتي صدام مركز صلاة أو كعادة صلاة الليل صلاة الصباح كهر مالك الجمعة ساعدها وضم بيا وقت كان التلحيس كي ملاها كم مقنع مقاحيها هي نسكفرينه فرصدوا إيه بهالكاين نقول رافت بل اسكت الساعة وضم بيس الجمعة ووقت ساعة الإجابة وكتير له رجب بدني هاي إن هذه رخلا ويس قفوا معيال كيس الراعية أما وحو كتير سفراء أما وحو كتير شرر فرصة أنت كبر ركضتك آد بيو يرتاح waxaa ka mid ah waqtigu roobku soo degayo qofku markuu sooman yahay marka uu afurayo abeelka leelatul qadriga maalinta carafa salaadaha dabadooda iyo waqtiga dagaalku bilaabmay cadawga lala dagaalamayo waqtiga uu qofku habeenkii ka soo kaco hurdada waxa jira dad ducadooda la aqbalo nabiguna inagu baraarujiyay calayhi salaatu wasalaam ama habaarkooda haday ku habaarana horay baa laga aqbalaya haday ku duceeyaan biidinilaahi horaa loo aqbalaya marka iska ilaali ducada wanaagsanna ka codso habaarkoodana iska ilaali waxa kamid ah qofka oo walaalkii u duceeyay isagoo ka maqan waa loo aqbalaya malag baag taagana wuxuu leeyahay aamiin walaka bimithl marka walaalkaaga maqan u duceeyay isagana ii soo duceeyay dacwatul waalid lil walad waalidkii oo waladka u duceeya waa kalaam waalid oo ma haro qofkii musaafirka ah qofkii soomanaa qofkii la dulmiyay isagana habaarkiisa waa la aqbalayaa qofkii madaxda ahaa ee caadilka ahaa caadilna wuxuu ku noqonayaa inuu sharciga islaamka dadka ku dhaqo waxa kamid ah waladka laftiisa oo waladu saalix yadcuu lahu waa loo aqbalayaa markuu waalidkiisa u duceeyo wa dacwatu almustayqid min an-nawm idha da'a bid-du'a al-ma'thur iyo qofku marka uu soo tooso ducadii iyo wardigii nabiga ka sugmay calayhi salaatu wasalaam oo akhriyo aadaabta waxa kamid ah inaynu ku ducaysano bijawaamic ducaa ducooyinka kooban laakiin gudaha ballaaran ee quraanka iyo sunnada ku sugan leena fiha al-asrar waxa ku jira sir dheeraada علماء الحديث waxay isla waafaqsan تجوز الروايه بمعنى الحديث حديثka macnihiisa waad warin kartaa adigoon erayadii nabiga soo qaadanin waad oran kartaa nabigu sidaas uu yiri ala macna qawli laakiin ducada iyada lama yiraahdo ala macna qawli nabi sallallahu alayhi wasallam lianna dhalika sunan waxa la doonayaa sidii uu nabigu yiri inaad u raacdo oo barab ibn aazib asxaabigii la oranayay nabigu wuxuu ku diiday inuu bi rasuulika iyo bi nabiyika labada isweydaariyo wuxuu yiri bi nabiyika baan ku wariyo bi rasuulika ku bedeli sidaas uu wad كم إذا الدعاء القرآن كل شيء أنا إلهي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحكوا ما ندتك حج كيناديه دعاء كل دعاء سنة يوشيء يسهم وينان قفك إلهي ببرية الدنيا آخرة با لإلهي بالدنيا آخرة لبضا بقى عن تقوايا وحكم إذا الدعاء النبي بتسنشر صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين إله قلبي هذا الرقرقة وقلبي قدين تكسه إلا وحلا قصية ثبات يسقنا شاوي أنا دين تكدورين الله قطوف صنين وحكم إذا الدعاء وعلي وشيء يا اللهم اهدني واستددني إلهي هاروني طريق حقا أنا يقول توس دعاء عائشة وشيء النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر اللهم أعني على اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يكوك الأبدا marka taasina waxay sheegaysaa marka ducooyinka jawaamicu ducaa la yiraahdo kooban
macnaha ballaaran nebigu caadaysan jiray ama asxaabta amray markaynu ku dadaalnay in aqbalku inoo soo dhawaado idan marka waxaad arkaysaa inuu yahay baabkani baab barasho u baahan si sirta aqbalku ay u soo dhawaato allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة